waad salaamaantahay dhegeysta ku soo dhaw markale barnaamijka kulanka waalidiinta. barnaamijkan ayaa waxaan cagta ku sarnaa oo aan dhegeysta kugu siinaa nasiixooyin iyo hababka ugu fudud oo aad waalid ahaan u siin karto carruurtada bilowga ugu wanaagsan ee nolosha. sirta dhabta ah ee cunida cuntada caafimaadka leh ee nafaqada isku dheelitiran waa in aad xadado kalooriga cuntadaada si aad isugu dheelitirto tamarta aad isticmaasho iyo midda aad hesho. haddaad cunto mise aad cabto in ka badan jirkaaga inta uu u baahan yahay, miisaanka ayaa kugu kordhaa, waayo tamarta aad adeegsanin buruur ahaan ayaa loo keediyaa. haddaad cuntada iyo cabitaanka aad isku yaraysana, miisaanka ayaa kaa go'a. waxa weeye inaad carruurtaada siiso cunooyin noocyo badan oo aad hubsato in ay helayaan nafaqada isku dheelitiran oo jirkoodana helayo nafaqada uu markaasi u baahan yahay. ila jaanqaad anigoo ah Farxaan Cali Mukhtaar. maanta barnaamijkeena waxaa marti noogu ah Dr. Cabdi Shucayb oo ah dhakhtar caafimaad guud oo ka howlgala caasimadda Nairobi. kulanka waalidiinta waxaa laga dhageystaa Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya oo waxaan rabnaa inaan maqalno afkaartaada. laga yaabaa inaad leedahay su'aal ku saabsan waalidnimada oo aad jeclaan lahayd mid ka mid ah khubaradeena inuu ka jawaabo, ama laga yaabo inaad haysid nasiixooyin caawin kara waalidiinta kale. xusuusnow, kani waa barnaamijka kulanka waalidiinta ee adiga lagugu talagalay, sidaas darteed hubso inaad nagala soo xiriirto Facebook ee kulanka waalidiinta ama noogu soo dir fariintaada WhatsApp. lambarkuna waa +25432 waan kaaga fadhinaa oorahdaada iyo afkaartaada dhegeyste. hayloobin, waxaa inoo xiga barnaamijka Sisima Sheeko Sheeko. isla hadda la soco si aad u dhegeysato barnaamij kale oo xiiso iyo xamaasad xambaarsan adiga iyo carruurtaada. maanta barnaamijka Sisima Sheeko Sheeko waxaa ka mid ah waxyaabaha ay carruurta ku maqli doonaan. maxaan sameeyaa talow? fikir. hagaag, barnaamij aad u xiiso badan dabcan waa tahay. ka hor intaanan wax ka weydiinin Dr. Cabdi Shucayb, barnaamijkeena maanta aan wada dhageysano sida ay uga falceliyeen waalidiinta bariga Afrika. waan weydiinay iyaga carruurtooda cunto noocee ah ayay jecel yihiin markay da'doodu u dhaxayso 3 ilaa 8 sano. waana kuwan jawaabahooda. ilmahaygu waxay inta badan ay aad u jecel yihiin hilibka digaaga. tan kaleeto waxay aad u jecel yihiin subaxa oo kaleeto quraacda in ay ku cunaan hilibka. tan kaleeto waxay aad u jecel yihiin casrida oo kaleeto marka ay soo kacaan shaaxa in ay ku cabaan chips amaba cabitaan. ilmaha xilligaas waa xilliga laga taxadiro ama waa xilliga ay korayaan, ay u baahan yihiin in la gooni lagu hayo. waxa si aad ugu fiican in la siiyo u haboon waa cuntada qudaarta u badan tahay, caanaha iyo xanaanad gooniya oo si gooniya loo ilaaliyo. carruurta waxa ay jecel yihiin midda koowaad waxa weeyaan oo aad ay u jecel yihiin waxa weeyaan caanaha. caanaha aad bay u jecel yihiin. waxa kaleeto ay jecel yihiin kalluunka, malayga. waxa kaloo ay jecel yihiin sareenta. waxaa kaloo ay jecel yihiin ukunta iyo caanaha xitaa loo yaqaano yogaadka aad bay u jecel yihiin, iyo khudaarta sida cambaha, tufaaxa, dhammaan aad bay u jecel yihiin intaas. caano, fiyaasi ama baasto. ani cunto nafaqa ciyaalka waxaan siiyaa da'dooda u dhexeysa 3 ilaa 8 jir. kaaroodka la shiide, viyaasiga la boondeeye, viyaasi taamka oo nafaqada ilmaha jirkooda dhisayso, jirkooda bucbuc ka dhigayso oo suurad quruxsan u yeelaysa ciyaalka, iyo boorashta iyo cabitaanada oo fruudka ah. fruudka liinta sidoo kale waan siiyaa. waa tahay Dr. Cabdi Shucayb, kusoo dhaw barnaamijkeena. maxaad kaga falcelinaysaa afkaartaasi waalidiinta oo cuntooyin noocee ah ayaa ku haboon carruurta in la siiyo? cuntooyinka ugu haboon waxaa waye horta cunto ma arkino oo inay ahaadaan la rabaa waxyaabaha dufanka inay ku yaraadaan cuntada, inayna waxyaaba sokor badanna inay ku yaraadaan cuntada. maaragta yaa loo baahan yahay ilmaha markay korayaan. waxyaabaha marka haboon sida hadda ma arkino aroortii hore quraacdii oo kale in caano oo loo caano oo yani faatka ku yaryahay in la siiyo, sida borj uujida oo kale aad bay u fiican tahay ilmaha markay yar yihiin. waxyaabaha markana hadda anaga markaan halkan joogno maaragtay oo la siini karto sidii maarkino mukatiga oo breadka oo kale oo u fiican yahay. waxyaabaha maarkino aad zaid uga dadaalaysa ilmaha maarkino inaan siinin waxyaabaha junk food aan oo kale. ilmaha waxba nafaqa aan jirkooda aan geenin oo maskaxdooda waxba aan kordhinaynin, ka yarayna cuntadooda intaad karayso iyo waxyaabaha maarkino sokorta badan. mararka qaar waxaanu aragnaa carruur nafaqo la'aan ah oo bidhaan xun iyo qaar aad u cayilan oo miisaan weyn. maxaa dhaliyaa kiisaska noocaasi oo kale ah? maxay samayni karaan waalidiinta si ay uga ilaaliyaan carruurtooda noocyadaasi? horta kuwa caatada ah inta badan cilado keenaa jira. ciladahaas haddii maarkino xanuun oo ilmahan ay ku dhasheen hadduu ahayn inta badan haddii cunto maarkino in ku filan ay helaynin, haddii maaragtay biyo iyo maarkino caafimaad dari iyo maarkino nadaafad dari
oo kale ay markano ku jiraan cuntadii iyo nafaqadii markano iyo jirkooda maaragtay waxba saas kuma kordhayo waxyaabaha kale markano poor health services oo kale keenaan waaye ilmaha markano caatana noqdaan hadii markano maamooyinka advice fiican aan la siinaynin xagga cuntada iyo nafaqada u fiican ilmaha marka xagga markano ilmaha markano si xad dhaaf oo markano u buuran ayagana hataa dhib inta badan hadii oo waxyaabo markano genetic aan ahayn oo markano because genetic markano causes ba iska jira waxyaaba maaragtay hadii ilmihii active ay ahayn oo iska maaragtay oo markasta iska guri iska jiifaan waxyaabahaas ayaa maaragtay cunto badan la siinayo xad dhaaf ah wixii hadii markano program ay ku soconin waxyaabahaas inta badan ilmaha markano sababo inay si xad dhaaf u buurtaan ayagana active markii jirkoodu ku raaya moogtahay inay very active ahaadaan baa loo baahan yahay markasta soo ma fahmi hadii markasta ilmihii iska jiifaan TV waxaas iska fiirsanayaan cunto ay cunayaan oo cuntadina xad dhaaf oo kale ay tahay si xad dhaaf bay u buuranayaan oo markano ayagana marka maskaxdooda iyo markano caafimaadkooda guud wax weyn baa markano ka halaawmay waxa marka waalidiinta laga rabo waxa way inay routine fiican ilmaha u suubiyaan oo maaragtay cuntayaasha nafaqada leh inay markasta siiyaan ilmihii inay si fiican active ka dhigaan oo markano oo mashquuliyaan intay karayaan waxyaabaha kale markano loo baahan yahay waxa way waxyaabaha cuntayaasha oo nafaqada badan aan lahayn oo iska xun oo waxba jirka aan ku kordhinayn sida junk foods waxaas ilmaha inay ka ilaaliyaan waxyaabo badan oo kale iyadoo cuntayaasha ilmaha maaragtay u encourage kale sida hadda adverts cuntayaasha zaid u falfaaliyo waxa sayto ilmaha markano waxay sababi karaan inay si xad dhaaf cuntada u cunaan waxyaabahaas ayagan in laga ilaaliyo ama si fiican markano loo tababaro cuntada nafaqada leh siday u caawaysaa carruurta waxyaabo badan ay ka saacidaysaa ilmaha horta si fiican bay u korayaan maskaxdooda si fiican bay u kori maskaxda especially qaybaha markano qofka maaragtay oo wax ku fahmo oo memory-ga iyo wax kasta markano control kulli qofka markay nafaqadiisa si fiican u fiicantahay si fiican u shaqeeyaan marka ilmaha iskuulkii very bright bay ku ahaanayaan psychology marka ilmaha si fiican bay u korayaan mustaqbalkoodana aad buu u fiicnaanaya mar hadii si fiican ilmaha markano loo nafaqeynayo oo si fiican markano arrimahooda la soconayo waa kuwa cuntooyinka nafaqada leh ee ku haboon in la siiyo carruurta da'dooda u dhaxayso 3 ilaa 8 sano cuntayaasha markano wixii oo nafaqada leh horta inay fruits iyo vegetables ay leeyihiin fresh vegetables iyo fruits intaas inay ku jirto waay caanaha oo kale waad siin kartaa 3 waqti caano oo fat badan aan lahayn waxyaabaha markano hilib iyo xasiid markano intiyaashood ugu dar kartaa bariiska iyo waxyaabahan caadi anaga Soomaali haddaan isticmaalno hadii hilib yar uu la socdo caanana aad la siinayso fruitsna aad la siinayso wixii difaacooda hagaajin lahaa wixii jirkooda dhisi lahaa oo dhan way helayaan waxyaabaha kale markano ilmaha maaragtay inaan maaragtay ayagana aan barno la rabo caafimaad ku fiican waxa biyaha markano biyo cabitaanka waxyaabaha anaga Soomaali haddaan nagu dhibka aanta badan waaye marka hadii ilmihii biyo la baro intiyaasha ay si fiican markano 3 waqti ay u cunayaan cuntayaashan inay xad dhaaf ahaadaan maaha ilmihiina aad si fiican u train garayso oo inay active ahaadaan maaragtay caafimaadkooda markasta aad ba u fiicnaanaya marka qaar waxaanu aragnaa waalidiin ku dhibaatooda cunto siimada carruurtooda oo waxay ku qasabtaa inay cunto ku barbariyaan mise ugu hanjabaan maxay samayn karaan waalidiintaasi ee wajaha dhibaatooyinkaas noocaasi oo kale ah kuna carqaladaysan cunto cunida ubadkooda waxyaabo badan markino la rabaa inaad suubis waalid hadaa tahay ilmaha horta waxyaabaha markano cuntada maaragtay hor istaagayo waxyaabaha haday jiraan oo zaid u mashquuliyo horta inaad ka yarayso waxyaabahaas oo kale hadii waxa TV-ga oo kale hadii cunugii zaid isku mashquulin saad uga distract oo dad markano oo maaragtay uga jeedin lahayd inaad isku daydaa raba adoo aqli isticmaalayo adoona hataa waxyaaba markano ballanqaad waxaas aad soo birin oo barkood yara qaldan waxaas lagu gada hada saas suubis ama dhakhtar cirbada lagu soo duro hada waxaan soo binaysaa adoo waxyaaba noocaas oo kale markano cunugii aad kaga nixinin inaad aqli u isticmaashaa laga rabaa cuntayaasha marka markano hadii oo cunugii si fiican markano loo sasabo oo markano oona maaragtay xogaha maaragtay loo kala zaid aan loo kala dheereen laakiin cuntadii hata waqti ilmaha barkood waxyaabaha maaragtay sababa barkood hata inay diidaan waxa way cuntadii markay sugayaan inaad waqti ku yara qaadato adiga u keeni lahaa waxyaabahaas badi inaad markano aad ka ilaalisaa laga rabaa mar kale waxaa jira waalidiin qaar oo ubadkooda siiya cunooyinka qashinka ah ee sida chipsiga iyo wixii lamid ah maxaad ku talinaysaa wallaahi aad bay u xun tahay junk foodska markano maskaxda wax weyn u dhibo waay qofka bini'aadanka maskaxda sito mar hadii si fiican u hagaagayso iyo caafimaadkiisa guud iyo wax fahamkiisa iyo fikirkiisa oo dhan markano aad u fiicnaanaya waxyaabaha markano oo memory-giisa iyo wax fahamkiisa oo dhan markano hagaajiso iyo zaid markano uu nusqaamisa cunugii marka wax fahamkiisa iyo ogaarkiisa wixii dhan hadii hoos aadaan waxay macnaynaysaa iskuulkii inuu maaragtay si fiican waxba u qabsan waayo waxyaabay oo soo tooyidii oo dhan ay ka dhuntaa saas haday noqotana cunugii marka moraalka baa ka dhumaya caafimaadkiisa guudna markano hoos buu sii aadayo si qaab daran buu noqonaya marka
junk foodka inta badan ma arkino ma u fiicno ilmaha intay ka yareyn karaan ha ka yareeyaan hadday ma arkino ay ka joojin karaan sida u fiican waay laakiin hadday ka yareyn karaan inta ka yareyn karaan ma arkino inay cuntada ka yareeyaan inay isku dayaan waay hagaag haatanna su'aalaha iyo falcelinta dhegeystayaasha dhammaan gobolada Kenya dhegeystahan waxa uu leeyahay cunugayga 3 jirka ah wuxuu aad u cunaa carrada maxaan sameeyaa si aan uga joojiyo dabeecadaasi horta ilmaha carrada cuno waxyaabo badan ma arkino u geysan karo haddii oo ma arkino cunugan maybe dhiiggiisa uu hooseeyo waxa la dhahay pika ay develop gareen oo ma arkino ku jida carrada iyo waxyaabahaas inay cunaan especially iron ka jirkooda ku yaryahay haddii taas ay jireen waxyaabaha ma arkino cunugii haddii waalidkii uu danka haynin oo uu ka mashquulsan yahay oo ka warhaynin waxyaabaha ma arkino sabab cunug ilmaha markay yaryihiin wax kasta inay afka iska gashadaan waa iska caadi marka carradaas waxyaabaha horta oo fitamiinka ah iyo fruits oo jirka ma arkino waxaas inuu cunugaas aad horta jirka cunug ugu dadaal fresh fruits ka iyo waxaas ay si fiican u sii mar haddii oo caafimaadkiisa okay u yahay adigana ma arkino oo si fiican ish ugu hayso cunugaada ma arkino waxyaabaas kuma dhaqaaqay haddii ma arkino cunugii carrada iyo waxaas cuno waxyaabo badan baa u imaan kara wax oo ma arkino dhib weyn hata u gaarsiin karo haddii calool xanuun ay tahay haddii dibiri ay tahay haddii ay tahay goryaan ma arkino maraha birkood haddii hata wax ay ku dhex jiraan hata carradaas iyo hata inay dhexeerada hata ma arkino dib u geystaan calooshii ma arkino isxirto oo cunugii khatar u galo iyo sabab karaan marka in ma arkino waalidka ma arkino ilmahaas oo kale inay si fiican war uga hayaan oo ma arkino oo waxaas ma arkata taxadiraan loo baahan Ethiopia dhegeysan waxa uu leeyahay inta badan dadka ku nool baadiyaha mise miyiga ma haystaan cuntooyin nafaqo leh maxaa ka garab dhow oo ay markaasi ka heli karaan nafaqada la doonayo sida tuulooyinka iyo baadiyaha iyo nafaqada leh oo isticmaali karaan oo ilmaha ma arkino siin karaan waa caanaha oo kale caanaha ayaa wax horta waa complete diet sidoodaba baadi oo fruits iyo waxaas ma arkino greens ay heli karaan ilmaha markana inay siiyaan iyo kumaha Djibouti dhegeysan waxa uu leeyahay cunugayga si weyn waxa uu kordhay miisaanka iyo culayska oo aad ayuu caylay waxaana ka cabsi qaba caafimaadkiisa maxaan sameeyaa si aan uga jaro miisaanka oo caafimaad u lahaado cuntayaasha horta ma arkino waxyaabaha ma arkino weight-ka yareynayo high protein diet oo siinaya cunuga waxyaabaha ma arkino cunuganiito ku jiidayo horta inta badan inuu cuno iyo ka ilaalinaya waxyaabaha kale waxa cunuganiito inuu active ahaado isku day cunuga mar hadduu active yahay wixii oo suuq jirkiisa fullaay energy bay isu bedelayaan waa ma arkino baruur ma fuulays jirkiisa cunuga mar hadduu active yahay jirkiisa wixii oo adkaynayo badanayo ma ogi baruurku ma badnaanaysa laga cunuga hadduu wax iska jiifo yahay cunto iska cunayo iska joogo maanta dhan waxa waaye waxyaabaha ma arkino sababay cunuganiito inuu baruur badan ay fuusho uu zaid u buurto dhegeystaani Soomaaliya waxa uu leeyahay cunida nafaqada leh sidee uga caawisaa canuga kubca maskaxdiisa cuntayaasha caadiga ah buusinaya sida la rabo adequately yani qiyaasta la rabo haddii cuntayaasha si fiican ma arkan ugu balance gareeyo hilibkaasi waxaas ay ku jiraan bariiska inay waxyaabaan aan siinayn ilmaha iyo caanana uu siinay 3 waqti cunugiina uu active yahay maskaxdiisa aad iyo aad bay markasta ma arkino ay u hagaagi laakiin cuntadii haday balance lahayn waxyaabo badan especially hada ma arkino fruits iyo vegetables waxyaabo ma arkino badan oo ma arkino maskax development-keeda ma arkino hagaajinayo dhana ka maqnaanay haddii cuntadiisa ay ku jiraan cunug si wanaagsan dhageyste wanaga intaasi inaga maanta balse halkani ku ekow dhageyste waayo sasame sheeko ayaa hadda inoo xigta barnaamijkani waad ku mahadsantahay Dr. Cabdi Shucayb ka soo qaybgalka barnaamijkeena maanta adiguna dhageyste waad ku mahadsantahay la jaanqaadkaaga iyo su'aalahaaga intaan hawada ka bixin waa tan Edo Ebion iyo xikmadeeda maanta xikmadda maanta Soomaalidu waxay tiraahdaa dantaada iyo madaxaaga toonna lagama boodo murtidan macnaheedu waa in qofku aanu dayicin wixii dantiisa iyo maslaxadiisu ay ku jirto ahamiyad gaarana uu siiyo sidaa darteed waalidiinta waa in ay la socdaan waxa carruurtooda dhibaato u keenaya sida cuntada ay cunaan iyo ilaalinta caafimaadkooda waayo haddii aanay sidaas samaynin waxaa dhalan karta in dhibaato caafimaad ku timaado sababna u noqoto murugo iyo kharash ka baxa si wanaagsan toddobaadka soo socda waxaan yeelan doonaa barnaamij kale oo aad u xiiso badan kulanka waalidiinta waxaana uga hadli doonaa muhiimadda ay leedahay inaad si dhow u barto ubadkaaga nadaafadda shakhsiyaad jirka aadanaha ayaa leh goobo jarmiska keena xanuunada iyo ku dulnoolayaasha ay ku kubcaan kuna tirabataan waxaa ka mid ah maqaarka qofku hadduu dhowro nadaafadda waa hubaal inaad ka badbaadin kartid carruurtaada xanuunada ka dhasha nadaafad darrada maxaa ka mid ah arrimaha adiga aad isku gaftaan carruurtaada xagga nadaafadooda waxaan rabnaa inaan maqalno adiga afkaartaada dhageystay fadlan
nagala soo xiriir lambarkeena WhatsApp ee +254 732 ewer 32 sidoo kale barteena Facebook ee kulanka waalidiinta oo halkaasi inoogu reeb fariintaada mar kale ka dhageyso barnaamijkani Axad iyo Arbaca walba Radio Fana ee dalka Itoobiya iyo Star FM Kenya iyo Soomaaliya ilaa iyo kulanti dambe xiiso leh mac salaam waxa inoo xiga barnaamijka Sesame Sheeko